واتاي خيارتي شرفت مدن dhegeysanaysa halkan nagala socoteen waa idaacada radio ascad mujadi fm iyo barta tartanka kulanaya radio ascad.com korsheegtaatu waxay baartay 9 rubuc dhiban alaaba hadda ay xilligan oo kale to xilligan soo baahan jiray ruuxa dalka dibadda naga soo gaaray warka madaxdiisii hay'adda WFP oo deeq raashin soo gaarsiisay meelo ka mid ah gobolka Sool odayaasha reer Tukarraq oo dhaleeceeyay hay'adda WFP madaxweynaha Puntland oo maanta ka duulay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari diblomaasiyiin Shiineesa oo maanta gaaray magaalada Jowhar 64 xubnood oo maanta la dhaariyay xildhibaanada gobolka Banaadir qarax xoog badan oo goor dhaweeyto ka dhacay Muqdisho Kibaki oo 100 milyan oo dollar dalbaday shirkadda isgaarsiinta ee Mareykanka oo kala shaqeynaya dawladdaasi dhinaca basaasnimada siyaasi reer Sri Lanka oo la dilay injineer u dhashay dalka Jordan oo ku guuleystay inuu samaysto diyaarad fudud bismillaahi arrahmaani arrahiim ciid wanaagsan dhammaantiinba muslimiinta ah wada naga dhageysanaysaay kulli caam wa antum bil khayr warka madaxdiisii magaalada Laascaanood oo maanta si weyn looga yiday talaal ka yimid dhinaca Hargeysa oo Laascaanood lagu qabtay madaxweyne Cadda Muuse oo sheegay inuu 10 maalmood gudahooda ku soo dhisayo dawlad cusub wasiirkii wasaaradda kalluumaysiga oo shaqadii laga fariisiyay lacag faalsa ah oo lagu gubay magaalada Boosaaso xaaladda ammaan ee degmada Kaaraan oo faraha ka baxday aweysan wanaagsan dhageystayaasha qiimaha mudan ee hawada naga dhageysanayo kusoo dhawaada warka madaxdiisii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa kulamo kula leh qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay magaalada Nairobi odayaasha deegaanka Cadaado ayaa ku eedeeyay in ay dhinaca deegaanka koonfurta Gaalkacyo iyagu ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay shalayto gobolka Galguduud wiil iyo gabadha aroos ahaa ayaa waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho habeennimadii xalay ciidamada ilaalada xeebaha ee Yemen ayaa qabtay 605 tahriibayaal Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira kulankii madaxda Afrika ayaa isagu ka soconaya magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan qaraar qabyo ah oo ku wajahan arrimaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ka soo baxay shirka ka soconaya magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan daar ku taala bartamaha Nairobi ayaa burbur ku yimid taasi oo ilaa iyo haatan ay dad badan hoosteeda ku xayiran yihiin bismillaahi raxmaani raxiim aweysin wanaagsan akhyaarta sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo kuna soo dhawaada warkeeni aweysnimo qodobadiisii ugu doorka roonaa cutubyo ka mid ah ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaalida Puntland oo saaka ka amabaxay magaalada Gaalkacyo waxaana loo sheegay inaan dib u dhigno baaritaanka macdanta iyo soo saarista khayraadka dabiiciga muddo 20 sano ah sidaasi waxa yiri General Cadda Muuse madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida Puntland madaxweyne Yuusuf iyo ra'iisul wasaare Geedi oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Baydhabo roob ka da'ay xalay caasimadda magaalada Muqdisho oo sababay khasaare naf iyo maadbale Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo xalay si lama filaan ah ku gaadhay Buur Xakaba maantana kulamo halkaasi kula leh waxgaradka deegaankaasi gudoomiyaha golaha shurada maxkamadaha iyo waliba wafdi uu hogaaminayo duulay dalka Masar bismillaahir rahmaanir rahiim aweys wanaagsan meel kastood naga dhageysanaysaan kuna soo dhawaada qodobadii warkayga aweysnimo ugu door corona khilaafkii u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda oo la sheegay in la xaliyay gudoomiyaha gobolka Bari ee duqa degmada Boosaaso oo ka digay siyaasado ka dhan ah maamulka Puntland in la keeno gobolka dawladda Soomaaliya iyo maxaakiimta oo iskaga hor yimid dhaqangelinta baasaboorka cusub madaxda Liibiya iyo Eritrea oo ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya dawladda Kenya oo ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya intaas waxa ay ahaayeen qodobada kuwii ugu door corona haatan ku soo dhawaada isagiyo fidsan bismillaahi raxmaani raxiim aweysin wanaagsan khiyaarta hawada naga dhageysanayo
kuna soo dhawaada warka madaxdiisii dagaal ka socda deegaanka hawdka ee tuulada qoriley madaxweynaha puntland oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ugu yaraan 3 qof oo si kala gooni ah maanta loogu dilay magaalada muqdisho dowladda kenya oo ciidamo dheeraada ku xoojisay soodinta soomaalida kooxda xiriirka soomaaliya oo ku baaqday ciidamo degdeg ah oo dalka soomaaliya loo soo diro hogaamiyaasha falastiiniyiinta oo heshiis ku kala saxiixday magaalada maka al mukarama baaritaan lagu sameynayo dilal ay geysteen saraakiil booliis faransiisa iiraan oo maraykanka si kulul uga digtay weerar ay ku soo qaado shir maanta u furmay wasiirada maaliyadda ee wadamada G7 jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan bishu waa 23 bishii 12 sanadkan 2005 warka madaxdiisii waqtigii dowladda federaalka Soomaaliya oo saaka ka ambabaxay magaalada Garowe Abdullahi Yusuf Ahmed oo saraakiil dalacsiiyay dabka kacay guryo ku yaala magaalada Gaalkacyo ciidamada maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo qabtay maleeshiyooyin dhac geystay nin ka tirsan ciidanka isbaahaysiga dooxada Jubba oo lagu dilay magaalada Kismaayo deeq la gaarsiiyay ciidanka booliiska magaalada Gedo dhismaha jaamacadda Hiiraan oo mar kale dib u bilowday Promiseville oo yiri madaxweynaha Mareykanka George W Bush wuxuu amray in la dhimo ciidamada Mareykanka Bush oo ku guul daraystay codsigiisa fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan akhyaarta hawada naga dhageysanaya ugu soo dhawaada qodobadii ugu door korona warkeena fiidnimo dowladda hoose ee degmada Laascanood oo bilowday howlgalo ay ku banaynayaan wadooyinka magaalada Laascanood roobab gaadoon galiyay guud ahaan gobolka Cayn ee Puntland shir ku saabsan ganacsiga xoolaha oo ka furmay magaalada Garowe Professor Gedo oo lagu codsaday inuu baarlamaanka hor yimaado seminar magaalada Baydhabo uga furmay odayaasha dhaqanka barihi Hiiraale oo dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo saraakiil ka socota hay'adda Interpol oo booqasho ku jooga magaalada Baydhabo qarax ka dhacay wadanka Shiinaha dalka Nepal oo ra'iisul wasaare cusub loo dhaariyay bismillaahir rahmaanir rahiim cawisnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlasaan kuna soo dhawaada qodobada aad warka ku maqli doontaan roobabka ka daay magaalada Laascanood oo hakiyay ganacsiga meheradaha qaarkood madaxweynaha Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso dowladda federaalka iyo maxaakiimta Muqdisho oo sheegay inay ka qayb qaadan doonaan wada hadallada Khartoum aadan senator oo ka baxay magaalada Soomaaliyeed oo lagu qabtay xadka wadamada Zimbabwe iyo South Africa haweenka dalalka Soomaaliya Iraq iyo Afghanistan oo la cadeeyay inay la kulmaan dhibaatooyinka ugu darnaa 6 nin oo Yurub u dhashay oo lagu xulay Yemen inay hub u geeyaan maxkamadaha Mareykanka oo lagu booriyay Ethiopia iyo Eritrea inaysan sii hurin colaadda Soomaaliya intaasi waxay hayeen qodobadii warka ugu door korona imikii haatan isagu fidsan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay dhageystayaasha qiimaha iyo sharafta iyo qaayaha oo naga intaasi guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo oo ilaa 6 iyo barkii fiidnimo ay noo socotay anigoo Cabdisaad Maxamuud Siciid Jamaal Salebaan Farjar Faisal Jaamac Aadan iyo Cabdiqani Cabdullaahi waxaan idinkaga tagnaa dhamaantay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh